بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن وناكسن dhegeystayaal meel kasta oo codkaygu idinka soo gaadhayo kuna soo dhawaada barnaamij suugaaneedkii idinka iman jiray rugta ururinta suugaanta iyo sooyaalka ee qalinsoor ma barxina sidii raagihii ma u banaanadii sidii buunigii sheekh xuseen buurka muuqaada buxur nimaan u dhalan baa ku darabara delqaafe basar kalena waa maansidan baari xarafkeeda buduq dhacay sidiisay ku tahay baarka reer cali iyadoo barxan bay timid beeraha duuwe barxalkeedu waa qorashay kaga bariistaan waa yara barxanee maalintan baari xarafkeeda baxsow qowdhan baa garan halkan buugga ka aqaan toddobaadkan dhegeystayaal barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa maansooyin iyo tix ay tiriyeen qaar ka mid ah sugaanyahanadii noolaa qarnigii 20aad waa abwaan xasan maxamed shaywaal oo xasan tarabi loo yaqaanay iyo abwaan xaye galeydh aadan oo labaduba ahaa rag suugaantooda si weyn looga yaqaano geyiga ay Soomaalidu degto barnaamijyo hore ayaanu idinku soo gudbinay qaar ka mid ah suugaantooda toddobaadkana qaybo kale oo ka mid ah jawharadii suugaaneed ay ka tageen ayaynu barnaamijka ku qaadan doonaa waxaana toddobaadkan barnaamijka igu marti ah abwaan ibraahim awaadan cilmi oo ah nin gabay xambaar ah isla markaana isaga qudhiisu curiya maasada waxaana waraysigeena dhex maray uu u dhacay sida tan ibraahimow waxaad ii sheegtay inaad wax ka hayso suugaanta uu curiyey allah u naxariistee xasan maxamed shaywaal xasan tarabi ceelkan bulaale gabay arrintaa halkaa ku suntanaa ayaa jiray ma hadda gabaygaas haddaad inala wadaagto wuu jiray gabaygaas taariikhda bulaale la qabsaday ayaa ahayd 1913 ahayd baan filayaa eedna nin sheekhaashoo awr wataa ayay walaalkaadii waraabi ceelkii xasan u jooga xasan kelmado gabay buu ugu jawaabay wuxuu soddon goor ka badan weerarkan tegay sabool ciid buur haddaan aan sarriin geelay uu sidii ma daaqeen nin walba se ka socay awgeed uu sabadayo ooyoode aduunbaa kitaabada sitee samir ogaadeene ma sakhraansan tahay reer garaad kama sarraysaan kaasi xasan tarabi uu ahaa doqoda xasan tarabi habeenkaa la joogay arooskii war israagay ayuu xasan gabay tiriyey way jaangaroobeen tixii joogay weligooda jiidkada raacatu kale looma jeel qabo gabay kelmadahan ka haya ayuu mariyey xasan maxamed shaywaal baa tiriyey waana madab xaye iyo qowdhan iyo odayaasha cabdi way fadhiyaan cabdigeer iyo saa oo jaleecay dadna xayaa gabay tiriyey halxidha wuxuu xirka mayiga waa caadadii muhullin buuxsha geeluna mareerku inuu midabku xiisma haddayse maangadii iyo burcada muri ku soo onto mataanaa dixduna uunka waa moosin loo furay masla cariyey waabeeyaduu maris u geeya madfaxuna dagaalku halkuu mara duqeeya anna waxaan mastuurtaba haddii ay murugta laabtaydu makiinadaha rogayaan sidii maax ka kiciya shir muddaa haddii lagu ballamo madasha gaaroodi inkastoy murmaantaan tirshaa laga majeertaaye waxaan midhaha waaweyn u idhi waan u miinsadeen mayni nugaaleed bay baqluhu uga manaagaan miil weynta geeloo kaliil maydhe lagu qoojay oo meel afmeeriya ku dhalay mudhayadii gaafka oo maalin leeliya habeen maqashu dhaadhayso oon abid magow lagu arkayn maahi ribaheeda ha lagaa maqlay kii gartow mari higaadiisa taa markii damba qorayadu ku fasila lihi ha lagaa maqlay kii gartow mari higaadiisa muduciyo madaacalay haddii ay maalmo badan joogto shir la midhay guurtiidu haddii ay madashu weynaato markuu maraggu jabo kii wallaa meersadaa helee magta iyo gartaan bixin lahayn meele lagu daynin ha lagaa maqlay kii gartow mari higaadiisa muraysida sankorar shaah oo lagu macaaneeyey iyadoo malqacaddii yarkii ugu madiixayo nin fujaanadii oo malyan muuna lagu siiyey oo hadalmilku leeyahay maye la soo taagan ha lagaa maqlay kii gartow mari higaadiisa maqsin lagu shaqaystoon la dhigin mariya soortoona oon muluga hoostiisa yaar murla ka cahayn oon meherad xoolaad lahayn miisna laga qaadan ha lagaa maqlay kii gartow mari higaadiisa malyuun iyo kun faqayoo tashiga meel wada jooga oo muusanowga iyo ridada laga mildhaawaayo oo sida maroodiga duhad muruqu weynaaday oo maalintay duulayaan maash u soconaya oon madax tus mooye dagaal madag lulaynaynin ha lagaa maqlay kii gartow mari higaadiisa inkastoo magaalooyin iyo maarsin laga keeno inkastoo fardii maxamed iyo moodhar lagu raadso inkastoo rag marwa u socda la isu midaansho halka dahabka moodka u baxsani maar ka ganac liitay ha lagaa maqlay kii gartow mari higaadiisa iyo kelmad kalunahayno kelmad ulaa halkan idhanka laga meeri karin mooski lagu deeri ha lagaa maqlay kii gartow mari gabay ilaa 7 ma halxidhu saas waxay markaa yidhi
xasan markaa isagoo odayaashii raalli gelinayaa ayuu gabay tiriyey xaye iyo sidii qowdhana golaha loo xaadhay oo xarafka kale sheegayo xidhaya baydgaabka amba niman xaraaba u baxo xeega dhalinaya amba yurub xaraabaha ka dhacay xolodka qiiqaya amba xaramka weyn oo la furay xarakadii iidda markan gabayga xaashoo dhexgala laygu soo xayeeye xunxunkaan ka dhowraa isaaqiguma xoomeene waxa kayga loo wada xusbiyey waxa jiinlii geel hadduu xiriir leeyahy iyo midab la xiiseeyo soo xabaadhni ku xagaarinoy niman xaraysteene faras hadduu xiriir leeyahy iyo xabsadiiyo meydig xakamaynay qaar duulay iyo xamar nugaaleede dhar hadduu xidhiir leeyahiyo midab la xiiseeyo dharka rooma laga keenay iyo xidhanay ruushwaan dumar hadduu xiriir leeyahy iyo qolo la xiiseeyo had boqolada xarakaysan iyo xulanay reer sheekhe diin hadduu xiriir leeyahy iyo xaqa midkii sheeka xaafidal qur-aan baa ku badan xarunta daawuude rag hadduu xiriir leeyahy iyo odayo xaajooda kuma xamana aadmiga kale lagu xaqiiqowye xagga iyaga dhe xaajiga boqrinaxay intuu yahay gabay kelmadahan ka hayo ayuu xasan markaa tiriyey ayuu madashii ka tiriyey xasanna cibro badan buu xasan ma garanaysaa waanu dee ka ayna yaraan nimanka midda labaad haye markii bulaxaar inayn sayid maxamuud cali qablax lagu xidhay ayuu xidhay annagoo geeljiraah oo dhegmanayd waxda ilaa marayna ayuu naga hor yimi oo lasoo daayey gabayna umaan tirin buu yidhi xertii buu isugu yeedhay xertii insha allah waa tacaala wala naxariisiga xayun akhriya dunko rafiiq ahayne soo dhawaada xayu insha allah tacaala markuu faranjigu bulaxaar ugu xidhay gabaygaad igu ducaysa tiri gabay umaan tirin buu kiis bay igu haa buu halkaasuu deedna gabay waxoogay ka bilaabay cabdilaahi xirsaa ila socda buu cabdilaahi uu gabay rag waa loo caddayn jiray casharka iyo wowguna ardada waa cod loo dhigae ma cutubiyo xarafkan sidii caalin yeedhsadee mar haddaan cuskado taydu waa caadoo buuxsamay geeliinu xir weyn yahay ninkii caawin jiray baa og eelinuu dhib leeyahay ninkii ciid ka haray baa og faras inuu cag fudud yahay ninkii col u taxaabaa og caaqila in loo dhima ninkii caga yeerlaayaa og roob inuu cagaar bixin ninkuu cumir helay baa og cosod inuu baruur yahay ninkii cuud ku furay baa og codcod inuu udgoon yahay ninkii carab ka miisaa og in cashiira aad tahay ninkii caydh u baxay baa og cunna inay war dheer tahay ninkii ceeb ka baqayaa og madfac inuu idheer yahay ninkii loo calaqay baa og cabdille iyo ogaadeen markii culus la weydaashay inuu ciidankii fara lahaa xigashada u diiday caska oo la daakiree ninkii lagu caweertaa og meeshiiyo colkii bele taran caaridka u xigaya abidkiisa colaad iyo ma tegin caydhis iyo qaade laba caarad meel laysku riday cays ma soo rogone qajaluu cayuun iyo baxsaday cariska qaalmaaye rabidaru cadaabaa ku diray gaalka coofka leh in cashuurta aakhiro cadaab kulu la geynayo sheekhyada cumaamada ninkii ka cabsoon waayo anna caarifiin aan ahay ninkan cawdu taraaba guur gabay kale habeenay salaan carabi isu hanjabayeen oo araarun ahayd araarun hayaa tegey burco abtiyo reer beelaa buu tegay maxamed beelaa deedna salaanoo maqdarada istibaalay salaanoo nin hadda gabyo ciidagala magaalada jooga su'aal ciidagala gabay ma salaan cabdigaheeriba u gabyaa cayuuno gabayga ma yaqaanin deedna gabay uu tiriyey uu leeyahay sada gabayga nuur dhagax ma saajax ku halkaas uu ka bilaabay markuu gabaygiisii dhameeyey ayaan buu kayga anigoo bilaash abtii way dhabtu waa nin badmareena oo kaa weyn oo kaa dawan iska daa deedna meesha waxay fadhiisto gabay buu siday araarun habeenkii oo dhan ahaa bisinkiisa gabay waa anigii buuni ku ahaaye ragga qaar bilaash buu hadlaa baxar ma jeexaane anigu taan bilaababa waa beler raaseede banka jiidan meesha iyo bartire babac axiin weyne burciyo looya ceegiyo intii odhan ka baallaysa buska dhooba weyniyo halkiiyo beeratiya xaxay ciisaha belaayada dhigiya burriya axmaarka abaskuul bartire iyo intaa baqarta maalaysa inta beerta wada goosatay geri u baalleeyo buuraha gurays iyo mardhiyo karinka baashiisha kolle waxaan murquli baalmarin biidhi fuudyade reer nuuxbalaadii hore ayay badi u qabeen bursuud iyo baxsa u yoonisnu beri kuwaasooy waayana bilaali tixdan baani laga sheegay ma barxina sidii raagihii ma u banaanadii sidii buunigii sheekh xuseen biirka muu qaaday buxuur nimaan u dhalan baa ku dara baraha deelqaafe basar kalena waa maansidan baadhi xarafkeeda buduq dhacay sidiisay ku tahay baarka reer cali iyadoo barxan bay timid bedhaha duuge barxalkeedu waa qoorashay kaga bariistaan waa yaro barxanee maalintan baadhi xarafkeeda baxsow qowdhan baa garan halkan buugga ka aqaan buu hoodla iyobay martaa bedha nugaale halkaasay baraawo iyo xamar uga boqooshaa
barxalku xukumay keenadid boqorka loo geeye buruudkeedu laamuu ku yahay biiftaan goyne burcadii ragwada iyo xiisbadowgu gaadhsiiye ma barxine sidii raagihii mau banaanadii sidii buunigii sheekh xuseen bigilka mau qaaday buxurniman u dhalan baa ku dara baraha deelqaafe basar kalena waa baansadaan baadhe xarafkeda bambaase iyo buundada sugays babaca nairobi bumbay iyo walaaye qaxwaha kaga bigaya nina hadduu baduwan yahay ma gala baraha waaweyne hadba gacanka soo baariyey buu beri ku maydhaaya ma barroosinkii baan u dhigay lagaga baydhayay bannaan aad fadhiisto rasaas burca loo saaray baybaysi buu kala tagaa nin isku beega bir waabeeye rubadaada waa laga bariya waa iga buraan buray markay beegsimaad noqoto ninka aniga ii soo baxo inoo barqa waa tahay dhegeystayaal intaas ayaan ku soo ila xidhayaa barnaamijkeenii suugaanta ee idinka imanayay rugta ururinta suugaanta iyo sooyaalka ee qalinsoor waana anigoo mawlid maxamed adowaaya iyo dhammaanba bahweynta qalinsoor oo idinkaga tegaya sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu